الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عشر كينو وعاوك بلابميا أو صبتئة سورة العنكبوت بلوغيدا وسورة دي سقالي اللباتناد tirsiga quraanka kariimka marka suuratul baqara laga soo xisaabiyo ama faatiha laga soo xisaabiyo dheh waa suurada 29aad suuradani waa suurad makiya way jiraan culimada qaarkood inay yiraahdeen suuradan qaar kamidii waxay ku soo degeen magaalada Madiina qaarna waa makiya suuratul ankabut oo dhan inay makiya tahay waxa laga wariyay ibn Abbas iyo ibn Zubayr Hasan al-Basri iyo Qatada iyo Ata iyo Jabir ibn Zayd iyo Muqatil waxa kale riwaayad kale ay soo aroortay ibn Abbas laftiisu inuu tilmaamay inay qaar kamidii ay tahay madani inay tahay waayo suuradan aad waxa ugu badan imtixaanaadka iyo munaafiqiinta hawshooda iyo jihaadka inta badanna waxa caan ku ah suuradahaas ayadaha madaniga laakiin al umum sida loo badan yahay suuradani waa suurad makiya suuradan aayadaheedu waa 69 aayadood 70 mid la way 69 aayadood bay ka kooban tahay kelmadaha marka kelmad loo tiriyo waxay ka koobmaysaa 1980 kelmadood 1980 kelmadood bay ka kooban tahay xurufta suuradan marka la xarafeeyo xarafkiiba la tiriyo xurufteedu waa 4595 xaraf weey 4595 xaraf bay suuradan ka kooban tahay macnaheedu waxa weeye hadaad suuradan akhrido 4595 ayaa 10 lagu dhifanaya waaye halka xaraf ee quraanka kariimka ay waa 10 meelood nabi alayhi salatu wasalaam la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf saddexda xaraf ee alif lam mim sadon darajo ajar ayaa laga siinaya allah ina waafajiyo marka suuradan xurufteedu waa 4595 xaraf suuradan waxay ka mid tahay suurado lagu magacaabay xayawaanaad ama xasharaad oo suuradani waa suuratul ankabut ankabutkuna waa caarada ama caarada dad bas siday u yaqaanaan caaro ama caaro xayawaankaas yar ee caarada ah ayaa suuradan loogu magac daray gaalada ayaana waxa lagu tusayay caaradu waa ogti waxay samaysataa guri yar oo candhuufteeda ay ka samayso oo aad iyo aad u jilcsan oo ilaahay ku tilmaamay wa inna awhana albuyuti labaytul ankabuti law kanu ya'lamun guriyaha la samaysto guriga ugu liita waa guriga caarada ama caarada maxaa yeelay guri marka la samaysanayo waxa loo samaystaa koow inuu cadow ka celiyo kan cadow kama celiyo duqsiga yar baa u gala oo ka dhaxbaxa labo qabow inuu ka celiyo guriga caaradu qabow ma celiyo saddex waxa guriyaha loo dhistaa inuu roob ka celiyo
روبنا كما عليو كليل إنه كعليو قري عارو كليل ما عليو وحبا ما عليو مركا تاس oo loogu tusaaleynayo asnaamtan ay alla sokadii caabudayaan inay un ka dhigan tahay caara bulkeed marka suuradan iyad caara lagu sheegay waxaan ugu tagi doonaa qasas markaynu dhameeyno suuratu naml quraanjadii baa iyada laga sheekeynaya soo arkimays suuratu nahl baynu u tagi doonaa oo iyadana shinnidii laga sheekeynay marka waa suwarka quraanka kariimka ah ee lagu sheegay xayawaanaadka ugu yaryar ayay markaa ka mid tahay suuradan mid waxay ku bilaabataa alif laam miim waana suuradaha isxiga waxaana quraanka kariimka 6 suuradood ya alif laam miim lagu bilowdaa guud ahaan 29 xaraf ama suurado 29 suuradood ee xuruufta googo'an lagu bilowdo 6 kamidii waa alif laam miim afar way isxigaan sajdaynu ka soo bilownay waxaanu soo marnay luqmaan ruum baynu soo dhamaynay caawa oo aynu cankabuud bilownay afartaasi alif laam miim bay ka bilowdaan waana isxigaan kaaba loo meeyso xisaabteedu labada kalena waa labada suurada quraanka ugu dhaadheero waa suuratul baqara iyo suurada ku xigtay al imraan lixdaas suuradood ya alif laam miim lagu bilaabo suuradani maadaama ay makiye tahay waxay ka hadlaysaa afar qodob marka la soo ururiyo suwarka makigu waxay ka sheekeeyeen afar arimood ayaa ugu badan waxaan lagu magacaabaa usuulul aqeeda aqeedada asalkeedu yaani waxa asaaska u ah waa maxay waa at-tawxiid والرسالة والقرآن والبعث والجزاء توحيدك إلهي كريجين لعابده يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الرسول لمدي صلى الله عليه وسلم وأي مشركين تلمذ بدي دنايين قرآن كريم كائن الرميو اللي قلنا غمو وأي قال هذا مشركين تدي دنايين إيوه ما ننت الدنبئ وقيامها وإلا يسوع صاري دونه سيد السورة ده مكيجو جودهان إنتاس بيكوريجا سورة دني مركا ويكون من عام دونتا iyadoo dadka muuminiinta iyo dadka muslimiinta ama guud ahaanba dadka tusaysa inaan ruuxa looga tagaynin inuu yiraahdo islaam baan ahay ama ilaahay baan rumeeyay iyadoo aan la tijaabin oo aan la imtixaamin oo aan la tijaabin aad iyo aad loo imtixaamin taana marka waxa weeyaan waxay tusi doontaa dadku inay laba u kala baxayaano marka la is imtixaamo dadka qaarkood imtixaanka way ku dhici qaarna way ku baasi كوي دعية كوي باسي بلغو شيغيا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ وحنكم بلابيا بتفسير هذه السورة سورة فسرد دي معنين تيدا مستعينا حالا كالميسان يا اسم الله يا لما عيسي الله الرحمن نحريس قودهانيد نحريسان يي ونحريسي سأدونكو قال يا مسلم باي مركا وذا قاريسي واتا الدنيا ده روبك يا رحماتك يا عافيماتك يا هودا يا عنتداس قال يا مسلم بوذا قاري والرحمة إلهي إعامك الرحيم الله النحريستا قارهانيد مؤمنين تاو النحريستا رحيم والنحريس إلهي ليهي لكن وحي يقولنكو تأدون يا آخرة ضدك إستغر ربيه تبارك وتعالى وحاود إلا وكان بالمؤمنين رحيما ألا وحي ألف لام ميم الله أعلم بمراده صدع ذا حرف ألف كي اللام كي ميم كا مركا اللي يسوقي معناها أي سمينيان يوجد إلهي أنبا يقانا تبارك وتعالى وطريقة أقوى أكسن وحويا مفسرين تو أي مرين إن علمي قود إلهي حق يسلو عليو تاسو قال دي أفتهنا ذا بدنيد لقو عاجس قليي ما دام أي اللغة آدو يقانين وحالوك ألف لام ميم صاد ياسين طه كاف ها يا عين صاد ووريرين مركا تعجيز قال هذا لقو عاجز قليوي ألا وحي أحسب ميي ليين الناس ضدكي أن يتركوا إلا قد تغايو اللي اسكدينايو
أن يقولوا أي بأن يقولوا إني دهين درتد آمنا إلهي بان رميني والحال هم إياك ددك لا يفتنون على امتحان الله وحيه تبارك وتعالى ولقد وحى حقيقة فتنا إنانو امتحاني أو جربني الذين كوي من قبلهم كوان كهريي إنانو امتحاني ألا وحيه فلا يعلمن موجيه أو عديه الله إلهي الذين كوي صدقوا رنشاقي أو إيمانكو رنتكأها إلهي عديه أما وحوي موجيه ولا يعلمن ألا أقاذي ألا وأقيهي أي معنى عديه أو موجيه بالوجه ولا يعلمن ألا عديه أو موجيه الكاذبين كوا بنت الشيغاية والرمينت إليه والرميني أنا إيمانك أهين أفك باركي أي تهي إلهي وحي تبارك وتعالى لبضع واكلا عضينينا وانا كلا صارينا قف امتحانك يكباسي يروح امتحانك يكدعي أي أقيب سميان أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا معنى أدوين بحنبار سنتهي حديث بان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وكم معنيه إن ددك الامتحاميو أو إيمانكو ذا اللي إيغيو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحوها صحيحة أشد الناس بلاء الأنبياء والصالحون ددك وحاو امتحانات بدن يعني دباتوينك iyo waxyaabaha dhacaya waxay ugu badan yihiin anbiyada Ilaahay soo diray tabaaraka wa taala iyo dadka saalixiinta thumma al-amthal fal-amthal kadina dadku sidii ay u kala fiican yihiin oo Ilaahay ugu dhow yihiin oo u kala iimaan wanaagsan yihiin ayaa imtixaanku ugu kala badanaya dhibaatooyinka dhacaya iyo imtixaanku qofba qofku Ilaahay uga dhow yahay uga badan yihiin intuu adduunyada joogo way markaas nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam yubtala ar-rajulu ala hasbi diini qofka waxa la jiraba oo la imtixaama diintiisu hadba inta ay leegtahay fa in kana fi diinihi salaba hadii diintiisu ay tahay diin adag oo aad diinta ugu dhagan yahay zida fil balaa'i imtixaanka waa lagu adkeeyaa waa lagu siyaadiyaa anbiyada Ilaahay saasay ahaayeen dhibaato badan bay soo mareen muuminiintiina waynu u tagi doonaa horena waxaanu u soo marnay yani waxa weeyaan iyadoo suuratul ahzaab Ilaahay wuxuu wazulzilu hatta yaqula ar-rasul yani waxa weeye illa imtixaamay oo la dhibaatay wazulzilu zilzalan shadida iyana suuratul ahzaab ku soo marnay وعنو تجدون وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صحابته امتحان كي صومرين امتحاير معهين أنبياء النصاص وكليها يرقب لك دلي قاربا من شهر مدح لك صاري إلى الله بقى الله كلا ردي سيدنا نبي الله يحيى وكله رجل الله يبو كم إذا بل قوم كذا قوم كيسو حال الشجاع geed weyn oo tiira intay jabiyeen oo aad u xoog weyn intay saaw dhaxgaliyeen inay isku soo celiyeen alhamdulillah anbiyada qaarkood alhamdulillah anbiyada qaarkood seef ayaa laga saaray dusha qarqarka ilaa markaa la riday qaarna inta dhulka loo qoday oo madaxa laga saaray seef iyo minshaar baa sidii loogu waday ay laba u kala dhaceen يعني أنبيادي يا صالحين تيسيدا سيهاين إلهي بانا مركا وحليه يعني ضدكم وحي لينا يان إن إلى هذا إسلام بانو إيمان بانو يلني يدون إلهي كلا صارين تبارك وتعالى إلهي ساوي حوي ليا وحمو من كلا سينيا ووحوين مركا إلهي قفحن أو إسكشاغتا إيمان كيس الشاغنيا شان إلهي مسينيا تبارك وتعالى الله مركا وحليه ليميز الله الخبيث من الطيب إلهي وحو كلا سوعي كوناكسنيا كحن بالله كلا سوعي وحلو كلا سوع معنا ومرك امتحانكم يمادو وهذا وعليها فعند الامتحان
يكرم المرء أو يهان مركا الله امتحامه أيا أما قفك الله كرامية أما قفك الله ليدة هبل أرحمه يقانو أما هبل والله نكنا وانا خطر سوى نكسب وحو يقانا إيمانكنا وانا امتحان كاسي وحبضا بقى الله يسكو امتحامية إلهي بقى تلمامي وحا الله يسكو امتحامية إني سورة البقرة كجرانو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات شنتاس الله يسكو امتحان وحال يسكو امتحان يا قاتشو وحال يسكو امتحان يا نبتقلي حمو يا عبسي وحال يسكو امتحان يا iyadoo dadku ay ka dhintaan oo marka waxa weeyaan nafti ay dhimato waxa weeye xoolihii oo ka dhamaada iyo beerihii oo ka xumaado waxba ka soo bixi waayeen intaasi markay dhacdo ilaahay kama hadlin kuwii murmay ee qayliyay aan sabrin ilaahay wuxuu bashiri saabiriin kuwa sabray u bishaareen marka Allah wuxuu tabaaraka wa taala alif lam mim ahasiba an-nas alif lam mim Allahu a'lam إلهي بمراد كودا يقان حروف تاس أحاسبا ميي ملايين الناس ددكي موحي ملايين أن يتركوا إن لوغتغايو أن يقولوا إن إدهان درادد آمنا وان رميني والحال هم إيجا لا يفتنون أن لا امتحامين وأن لا جربون ولماذا قاركود وحيليين آياتنا مركا وحيكو سودكتي يعني ددكي يعني waxa weeye magaalada Makka joogay oo marka dad muslimiin ah oo aad iyo aad islaamka loogu dhibay oo aad u rafaaday sida Bilal ibn Rabah oo duurkii intay soo saaraan qoladii Abu Jahl iyo ragiisi yaa banaanka la soo saari jiray waxa la keen jiray bacaadka duurkii dharka intay ay ka saaraan oo dhagax aad u weyn ay marka ka saaraan xabadka iyo dhabarka marka qaarkood marba dhinac bay u lagdi jireen أي أورنجر المكان قالوا يسا محمد مسواك قوتنا مركز أورنجي أحد إلى مركز قوم قال والله امتحان دينتي السنة كمان لابن الله وحيه تبارك وتعالى ولقد وحى حقيقة فتنا إن امتحاني إن نجربني الذين كوي من قبلهم كوا كان أمة محمد كوي كوريي إن امتحاني وأنو جربنا امتحان أدق مريني أي حقيق الله با اللي مركا وحي فلا يعلمن أغادي الله إلهي مركا إلهي دي يعني وأغيهي لكن وحالو جدا موجيه وددك تسوي فلا يعلمن أغادي الله إلهي أو عديه أو موجيه الذين خيارتي صدقوا رنت الشيغي فيما قالوا من الإيمان وحي أي شيغتان حق إيمانك كوا رنت كيهي oo dhibaatadu markay dhacday ku adkaysay ilaahay tabaaraka wa taala uu muujinuna cadeyn wala ya'lamanna la wallahi la ya'lamanna alla wa cadeynaya wa muujinaya oo waa ogaanaya alkaadibiina kuwii beenta sheegay ilaahay tabaaraka wa taala uu cadeynaya marka culimadu qaar waxay leeyihiin waxay ku soo degtay Ammar ibn Yasir qaarkood waxay leeyihiin nin loo oran jiray Mihja ayay ku soo degtay ninka isaga wuxuu ahaa awwal qatil min almuslimiin yawm badr dadkii muslimiinta ah dagaalkii badr ninkii ugu horeeyay ee la dilay oo shahiiday ayuu ahaa Mihja ninka la oran jiray wuxuuna ahaa sanabigu yiri sallallahu alayhi wasallam awwal man yud'a ila bab aljanna min hadhihi al-umma Mihja waa qofka ugu horeeya ee ummatu Muhammad ee jannada looga yeerayo سنبي وشجع عليه الصلاة والسلام مركاسا مركي وشهيدي أيها وحاد مرجودي أو عبصدي أو يعني مرجودي إسهاي واي هو يديس يأبيس يحاسكيسي كلمة آياتنا سودكتي فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله وحيه تبارك وتعالى أم حسب موحي ملايين الذين كوي يعملون السميني السيئات حمان ياشا يدنبيا حنحن شرك با أهرية إيا معصية كوة سمينيا موحي ملايين أن يسبقونا إن نقد ديرينيا إن نقد أرديان ونقد ديري كران
ما سيدا ساوايابه أي ملايين يومي الله وحي تبارك وتعالى ساء وحاح ماضي ما شيء يحكمون أي يحكمونه شيء أي حكوميان وأي سليهين إلهي بعد كفا كان كرتان الله إليه شيء ساء ماضي وحلو قلت الشضو وحاوت لحن قفك يسيرين دنبك السميع لك سوقا معي عجائب وي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون آيات دا صاحب هروج سومر جاثية أي جرتوي عجائب بدنا يدنا مركا آيات دني وحي نوت الماميسا قفك وحويان إنو سن ملايين isagoo xumaanta walaaqanaya inuu haddana ilaahay ka fakan karo tabaaraka wa tacaala ilaahay meel laga fakadaa ma jirto yaa macshara aljinni wal ins in istata'tum an tanfuduu min aqtaari samaawaati wal ardi fanfuduu laa tanfuduuna illa bisultaan ilaahay tabaaraka wa tacaala meel laga baxsan ahlu naarku waxay oran doonaan ayna almafar kalla la wazar ila rabbika yawma idin almustaqar meel loo baxsan karaa ma jirto marka aayadan waxay kala tilmaamaysaa ruuxu waxa dhici karta soo dambiga sameeynaya inuu isiraado ilaahay ku arki maayo laakiin uu dadka kale iska eego faaxishu sababa inuu sameeyo dadka kale uu iska eegaya kadibna wuxuu doono walaaqanaya marka taas waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa qofku inuu u malaynayay markuu waxan walaaqanayo ilaahayna aanu ka xishoonaynin yani waxa weeyaan in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dheerayn karo oo alla aanu soo qabanin yani qowlka ka oran maayo laakiin ficilkiisa ku tusaya ya imaam ahmed baa oran jiray gabay ajaa'ib badan oo ah idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب حسدهن يعني وحويان قال لك أرك ما يوحد دون السماء إلهي تبارك وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا إن هذا السلالة سمر والباء فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين إلهي سألك أرك تبارك وتعالى قال لك وحي أم حسب ما وحي ملايين وقاتين الذين وحي يعملون السمينا السيئات حمان ياشا وجمع بالك السيئات حمان تكوي سمينا أن يسبقونا إن نقد ديرين وعذاب كي كديرين كرام مساسة ملايين حسابهم بيسكن في صدر الوحي ساء وحا حماضي ما أي الذي كي يحكمون أي مركا حكوميين وأي فلانيين كأيا حماضي بأليه تبارك وتعالى وحم بي في الشنوي ألا مركا وحي من كان يرجو لقاء الله من أحد كي كان هذا يرجو مدر جينيا وآمن سن ورجك قبل لقاء الله إلهي لكل مديسة روحي رجينا يوم فإن أجل الله لآت أي فليبادر إلى العمل الصالح عمل كوناكسر هو دقدقو محايا لف إن أجل الله إلهي تبارك وتعالى مدديس لآت مد إيمان يسوي إلهي وقت غيسة يمضش أو كودغي يا وقت أو كوقبت وي إيمان ألوحي تبارك وتعالى وهو ألا السميع الله وحك السمغلا جميع المسموعات وحك الصلوات الله مغلا العليم الله وحك الله سميع الله تبارك وتعالى ساسوي مركا والله المامود عجبا أيضا من كان يرجو لقاء الله قفكي رجخ قبا وآمسا ورميسا ربي تبارك وتعالى إنه لكل ما يوم روحاس هاودك دق عملك وناكسن محايا لأجش إلهي ويكوي منيسا عمرك أقول وتجي تضباطك كيسا لغوسي مالو البواب مينس بلاس مال مربع جملة لغوسي هل مربع تضباطك لغوه ذا ديبي تضباطك البرخسي وشريا دغدنا ويشريسا ساعده ويشري maalintu way jari usbuucu wuu jari bishu way sii jari sanadku wuu jari
saasaa loo rifaya saasaa loo rifaya maanta waxaad arkaysaa adoo waxbaan gacanta ku hayba 70 sano ay dhamaadeen adoon adduunka farba ka soo leefin waa cajiib ayadana markaa waxa weeye runtii wacdi bay ku filantay qofkii rabbi inuu la kulmayo rajo ka qaba waa qofka mu'minka wuu aaminsan yahay iimaanka waxaa ka mid ah lixda ah al-iimaanu bil-yawmi al-aakhir qofku wuxuu aaminsan yahay maalin dambayso inaga iyo gaalada waxaan u kala duwannahay waa saas inagu waxaynu aaminsannahay adduunkan inuu dhammaan doono maalin ay iman doonto ummadda la xisaabin oo ummadda la kala saari oo qaar janno loo dareerin allah inagu daree qaarna cadaab loo kaxayn allah inaga badbaadiyey maalin dadna nimcaysanayaan dadna ay naar garoobayaan hawlaha noocaas oo kale ay waxay keentay in dadka adduunyada intay joogeen muslimiinta ah ay cibaado iyo camal iyo khayr iyo sadaqo iyo nimco iyo diin barasho iyo i'tikaaf iyo dacwad iyo sama iyo khayr inay ka shaqeeyaan afkooda iyo adinkoodana ay xumaanta ka ilaaliyaan sababtu waxay aaminsan yihiin maalin dambe inay iman doonto ibn Abbas baa wuxuu oran jiray يا مقاتل لبضبا من كان يرجو لقاء الله معناها أي من كان يخشى البعث والحساب قفكي كعب سنة إسا صارد يا حساب تروحي كعب سنة يو فإن أجل الله لآت يعني عمل ونكسس ما يسوي مركا ووعي مركا يرجو بمعنى يخاف بالغ فسر يا بولي سعيد بن جبير وكل تابعي قاسي وآيات كفسر جري من كان يطمع في ثواب الله قفكي دمعسن أو قدرينيا إلهي أجرك أو بحيو جنة حطوبت كانوا عملها الله يماضو وعلمت آيات سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بلمته الله تبارك وتعالى من أحدك كان هذا يرجو مدرجين يا مكعب صنيا لقاء الله إلهي إلا كل كيسا فليبادر إلى العمل الصالح لهالكامركا فليبادر إلى العمل الصالح عمل كونك سنة ودقدقو محايلة فإن أجل الله إلهي مدديس لآت من إيمان يسوي ما وعد الله من الثواب والعقاب وإيمان يسوي الله تبارك وتعالى ومركا وهو الله السميع الله وحكست مغلي وحكست مغلي يوي وحباني كقرسومين العليم الله وحكست أق ويقان أقرني العلم قولوي الله وحيه تبارك وتعالى ومن جاهد ومن أحدك جاهد دذاله روحي جهاد أو دذاله فإنما يجاهد وعو جهاديا لنفسه أي لنفع نفسه نفتي سوحتر كذا أيوم بود ذلك يا أوجي هذا محايل إن الله إلهي لغني الله كمار موي الله ككافتون عن العالمين أنك أودن إلهي تبارك وتعالى وكمار من ومركا آياتني وحي تلمام إنسان وحادعي كرتا ذاتك الجهاد ككجرة وعمل كهذا كجرة إن إسنهان إلهي بوحتر إنسان oo ilaahay baad markaa jihaadkan iyo dagaalka aad ku jirtaan Allah wuxuu tarayaa kala adduunyadu adiga wax kugu taraya islaamnimadana way ku badbaadaysaa ilaahayna janno kugu siinaya diinta allana waad kor yeelaysaa laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba ugama baahna wa ilaahay in allaha ghaniyun 'ala al-'alamin alla waxba kaga nusqaami maayaan wax ilaahay kaga dhinmaya oo alla leeyahay markii la jihaadi waayay إلهي ملكيسي مالكيسي با يراادي ما جرتوي إلهي وغني تبارك وتعالى وحبا كمان نسقامان آذانها وحو ياهي فقرأي الصباب بن آذان كوحين صامرني يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله إنكو باهي ضد باهم بيننا باهي بضاني وبن آذان وذوقتين مانتا أدونكي الله إنك بادي حنونك كورونا فايروس لورنجري markuu qabsaday oo waxa way waliba dhulkii gaalada ilaahay tabaaraka wa tacaala ku imtixaan maanta laga warramay wad ka wareyseen yaani waxa way in dhaqaalihii uu taagan yahay inuu baabao shirkado dhame inay xidhmeen
wax allaale iyo wixii isu socdaha iyo iskuulaadkii inay xidhmeen in hadeer ay marayso waxa weeyaan in dawlado dhani ay xaaladda ka baxaan allah inaga badbaadiyo inaga islaamkana allah ka badbaadiyo gaaladana allah u siyaadiyo waa imtixaan ilaahay u soo diray markay islaamkii dhibeen waxaan awoodda ilaahay lagu tusayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisu intay leegtay fayras yar oo indhaha aan lagu arki karin oo si kastoo loo eego aan isha lagu qaban karin oo meeluu kaa galay iyo gooruu ku galay iyo suu kuu galay iyo suu kaaga baxo midna aan la garin habe dhoweyd yaa mid isagoo dhakhtar taagan oo talyaaniya yaa dhakhtarkiiba waa la yar baa markaasaa la yidhi waa ku hayaaya waa sii tahay maalinta oo dhan baa la baxsanayay waa qaylinaya yani iimaan ma leh dadka muslimiinta muxuu leeyahay ما شاء الله هذا قدر الله ما شاء الله كان إلهي بقى يقدري الحمد لله وكاس الحمد لله على كل حال ويابين تبدأ بقوا إسلامية هذا بدن وحير هذا منك شيء كريه هدر الله يا إنه الدفاع كي هاي والاستنشاق وبيها لو مركل لو يسري يسنك لك دار سنة أنت سنك لك يسنك لصون نذيفين أيو خلاص انت سأود دوابالين صندارسك أو بطل ويسد أسك بطل وحبا إلهي كيالي ما تبارك وتعالى وعجائب رمتي مركا واحد ويان إلهي أنا قبت باديو مركا الله وحي تبارك وتعالى ومن أحد جاهد روحي جهادا ومركا دقال لما أما نفتي سد جهاد يا خير يا دعوة أقلا فإنما يجاهد وجهاد يا أوكليا لنفسه نفتي سوحتر كده سي أجر سي الدنيا الله وحي إن الله إلهي لغني على كم مارمة أو ككافتومي وعن العالمين أونك أوردن الله وحي تبارك وتعالى والذين خيارتي آمنوا أهل الرميي وعملوا شقيا الصالحات عمل لدى وناكسن إلهي الرهالي كيهي لنكفرن ونضافينا وقرننا عنهم حقودا سيئاتهم حماياشودا iyo dambiga ay galeen waanu ka tiraynaa waa ka qarinaynaa wala najziyannahum waxaanu ku abaalmarinaynaa ahsana alladhi kii ugu wanaagsana alladhi kaasoo kaanu ay ahaayeen ahsan amal kii ugu wanaagsana alladhi amal kaasoo kaanu ay ahaayeen yacmaluna kuwa shaqeeya yani bi ahsani a'malihim amalkooda ugu wanaagsan ayaanu ku abaalmarinaynaa oo daacada ah jannada loogu bedelayaa weeyaan Allah tabaaraka wa taala marka wuxuu tilmaamay dadka muuminiinta ah laba qodob ayay la yimaadeen markaas Ilaahay laba qodob siiyay waxay la yimaadeen al-iimaan wal amal salih rumaynay Allah rumeeyeen iyo amal wanaagsan Ilaahayna wuxuu ugu bedelay labada wuxuu ugu abaalmariyay lanukaffiranna anhum sayi'atihim xumaan yaashii ay sameeyeen ilaa wa bini aadane alla inuu ka dhaqay tabaaraka wa taala oo ka dhaafay oo aan loo qabanayn talabaadna ilaa inuu ka abaalmariyo wixii ay sameeyeen loogu abaalmariyo wixii ugu wanaagsanaa loogu abaalgudo oo maxay ah man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha qofkii hal ajar sameeya 10 jeer baa loo laabaya salaada aad tukataa waa 10 laab shanta salaadood waa 50 salaadood si nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyay loo soo balaqaaday subhanallah marka tiraado 10 subhanallah lagu qoriya Allahu akbar sadaqadii waa lagu labalaabi $1 baad bixisay waxa dhici karta $700 oo inay ku gaadho halkii $700 oo inuu gaadho marka waa ajiib way alla wixii marka walladina khiyarti aamanu ala rumeeyay وعملوا شقيا صالحات عماشا وناكسا لنكفرن وندافينا أو قرننا عنهم حقود سيئاتهم حمان ياشودا ولنجزينهم وحانكو أبا المريننا أحسن الذي كيسي وناكسنا أحسن الذي كي وناكسنا وكانوا يهيين يعملون كوصا ميوي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا هل كان وحاكب لوضي والدك وأنه دور قرن صومرني
إلهي تبارك وتعالى وكجور رمي والدك وآياتي صدحات ووصيناك بالعبطي وحين صامرني سورة اللقمان آياتي شريعة مناد بيهيد ووصينا الإنسان وحين كصامرني سورة دلو يقان سورة الأحقاف يدنا وحا عجائب بدن إن هي آياتي شريعة مناد لبدا سورة ضد لقمان يا أحقاف لبدا آيات والدك كهذا لمن ولا بركة شريعة مناد وهذه عجائب والله ياب لوي ألوحي تبارك آياتنا وآيات الضباط ما آيات السديدوة ألوحي تبارك وتعالى ووصينا ونقدر دارني لبا تفسير بوالغو فسرها ووصينا أي أمرنا وانفرني أما أوصينا ونقدر دارني ووصينا ونقدر دارنا وان أمرني الإنسان قفكي إنسان كابن آذن كها بوالديه أي أن يحسن إنه إحسان فلو بوالديه لبدي سوالد حسنا وناك وبرا بهما وعطفا عليهما وأنا حريص يطرتان كوي الوعي تبارك وتعالى لبدا والد وحان إنسان كأدق أدي وحويان أدر دارني إني لبدا والد إحسان السميان وأذكر كوالد كاس حتى هدو قال يهي إن هذا معروف السميسو وهذو إحسان فشو ووحي هذو قمن كتو وناكسن هذو قبطو الله مركا وحي وإن جاهداك هذي اللي بدأ والد كقولد دالان ومركا وحويان أيكو أمران لتشرك إن هذا وذاجسو بي أنيقا ما ليس لك به علم ما شيء ليس لك أذيك عنك وسجنان به شيء علم يقوى حضن لهين هدي أي دمعان إن أدمرك أو الشرك سميسو إلهي وأد معصية الله تمادو حالتها فلا تضيع أديع هما اللي بدا والد وركها كو أديع محايا لي لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق قف مخلوق لقما أديعيه الله لقو عرق لي تبارك وتعالى الله مركوحي تبارك وتعالى إلي أنيق حقيقة وكلي أيو مرجعكم مكان لابتكينو ماشاد الله بنيسان حقيقة أيو هذي فأنبئكم وحاندين كور رميا بما أي الذي كي كنتم هذين تعملونه في الدنيا واحد كشقي جنتين ما ندي كشقين آخر غف والبوي عمل فلجري وحونا أكسنية وحنبا هرتيسوا ملكين وحونا أكسن الله ينتصر الله مركوحي تبارك وتعالى آياتنا هورين وصو منين بدن وحين وصو شغني إن أنت بدن آياتنا كسو دكتي سعد بن أبي وقاص صحابي لورن جري كمدها طبعا كيش جنة لو قب بشاريي إسلام هو يدي سعيد ومركا لورن جري حمنا بنت أبي سفيان حمنا بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد الشمس هو يدي حمنا اللي يجري مركا سعد بن أبي وقاص إسلام هو يدي إسلام مركا قال هذا بيحيد كدمنا وحويان مركو إسلامي أي وحي تري لا آكل ولا أشرب مع بايو أو معونايو أو مهرسنايو قرحدا تاغنان أو مفريسنايو حتى تكفر بمحمد إلى أدويل كيو محمد كقالوا ذو حالدي هوي ما إنسان كده هوي إنسان كده مركو أركي إن أنا إسلامتو دون إني هوشا سوى دايربتو أنا دون إني جحجحدو أيو عقير هوي والله هدي بقول نف لجو قليو أو مذيبا أنا أركي أي مركب بحضو أو كاب بحضو أو كاب بحضو إسنيه ما يهوي ذا تيس وحوي سجاني ما كب حي هل نف باكو هديك قالوا يهوي ذا كعلي ما نهيبي وحنوا الدين والتوحيد وإسلام نمو وحي أضحق يقول هذا هو الديار بنقولها مركي أركتي ده إن أنا أتشحين يا شراب كده سكعبتي والوجود ده يا موتى مركي أركتينا اللي سجوا جنين هوشة قصتوي الله مركي وحده تبارك وتعالى ووصينا وحنقدر دارني الإنسان إنسانك بوالديه أي أن يحسن هل كأسوا قدروا أن يحسن إنه وناك فلو
بوالديه لبدي سوالد إحسان حسنا وناك هو مصدر حسن تاسي ومصدر تدموي حسنا وناك إنه أصميه وإن جاهداك هديك ولد دالان الجهد ودذلك هديك ولد دالان لبدي والد ها مركا وحوي وإن جاهداك وحوسو قدري كتا ووصينا وحانو دردارني إن جاهداك هل كان وصو قدرن كتا أيضا ها وإن جاهداك ووصينا وحانو دردارني إنسانك إن جاهداك هدين لبدا والدك ولد دالان لتشرك إن وذاجسو بي أنيغا ما شيء ليس لك أديك أنا كوكسونان به شيء علم أقون وهذا العلم لهين هديك هذا نلعب إلهي وشرك السماء فلا تطعهما لبدا والدها كأدعين وحويان إلي أنيغا حقا كريا أيهم مرجعكم مكان لا بتكينوا هذا ما شاء الله بنيسان وأنيغا حقا مركز لابطان فأنبئكم وحان ذين كور رميا بما كي كنتم هيدين تعملون كوا سميا خبر أيها الكائدية لوي اللوعي مركله والذين خيارتي آمنوا ألا الرميي وعملوا السميو شقيي الصالحات أعماشا وناكسا عمل كصالح دور قولنا وينو تلماني عمل صالحة أيوم بالغو هذه الشر دي سدو دوبا الله يرادا لكن عملك مركو صالح يهي ومركا لما أرمود لقاه لأوته هديك العملك صالح معها مركز مسكحتك وين عملك وحو صالح كل غني يلا بشر ديو كليه كو وحويان أن يكون إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى وإنه إلهي درتي أبر احتريه إلهي درتي تبارك وتعالى شيء قد سمينه سوى إنه ألدركي كليه كايه يد وجهك قدوني الله يد أبالك سكربتها الله إلهي أدرتي أصمي سلاد بتكن هبل وحكوكو ترى إيه هبل حكوكو على إيه هبل حكو يراد والله إنك نوصف كوريه وحلا قبته قلت دبلها جوا كولا هضلو هدان هؤلاء النوع عاصي هبل إسكنا عدعنا يسوع وحبا أكتب كوما يالن وحبا كوما يالن سيدا ننكي مركا عبد واحد كشيء كينجر عبد حيم يعني أو يرنين با سلاد الآن بوهانجر مكاساني قرابين بيوريو ولا ما اسكتو كت ولا ما حانتو كنا وحما هينه والما أول ببناها كسينا يه قادة كابعين يسكسو تكو مركو شن مال مود ملا تكنيه كنا أوتوري بمان تدير هي ده يصد العتي واسوتو كده كاسو ده سلاد إليه أوتو كنيسي أنا يماذا تكنيني وريو سلاد تكنيو هم سلاد كل ألوشيا مالول با إلهي كعبسو وريو سهي وحكو ترتو والله شنتي مال مود بلاويسا كنت كده حكو ترتو هذين هاي وحكو ترتو شن مال مود بلاويسا أنتو كده هاي مركا قف كاسي وحد مود ده إنه إسلام هبل بقى مركا ده كعب المرين مركا تاس سلوا قبض بعض عملكم وإنه يهي إلهي درتي قضك كوبادو وحكصل إلهي درتي هاي نميل لما قارن قضب كلمات وامحي وموافقة وإنه وافق سيهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام راتكيسي خلاص وإن نبي وكاغو الرئيي وأنا بدعاهين مركا عملك لما قضبات كيلا لسي كو بدعات كيلا وحد كيلا لسا الشركي وهداد عدك إلهي كل درته وشركي بالنغنية هدي آد طريق نبي محمد وحانا هين آد عبادة كدقتنا بدعو نغنية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خلاص هو الله مرغوحي والذين خيارتي آمنوا ألا الرميي وعملوا شقيا صالحات عماشا وناكسا لندخلنهم وقلنا في الصالحين أي في زمرة الصالحين ذاتك وناكسن معودة أيانو ميل قلني نوي أو جنة اللي قلني ذاتك على الشيء يا نوام حي والأنبياء والأولياء أنبياء ذي أولياء أيا اللي قلني يوي ومدخل الصالحين الجنة صالحين تمشي اللي قلني وجنة اللهم اجعلنا منهم الله ينقدر الله مركا وحي تبارك وتعالى مركا الجنة ذي إن الأمة الصالحين تيادتك أنبياء يادتك خير كغبا إن الميل لدكتو لماذا الرماد بالله بينات كده إن شاء الله نوافجيه وإيماني عمل صالحة الوحي والذين خيارت آمنوا الله الرمي وعملوا الصالحات عماش ونكسن سمي
lanudkhilannahum waxaan gelinaynaa oo gelinaynaa fi saalixiina yani dadka wanaagsan dhexdooda gelinaynaa wey allah markaa wuxuu yihi wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man mid baa ka mida qof yaquulu dhahaya aamannaa billaahi ilaahay baan rumaynay faidaa goorta uudiya la dhibo fillaahi ay fii diin illaahi ilaahay diintiisa marka lagu dhibo oo la imtixaamo oo dhibaata soo gaadho oo xaaladdu adkaatana yani wuu isbedelayaa oo markaa waxa weeye sabirkii iyo xaaladiisii oo dhan baa markaa meesha ka baxaya alla markaa wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala faidaa goorta uudiya loo dhibo fillaahi ilaahay dartii marka loo dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnata annaasi dadka dhibaatadooda dhibka fitna waa dhibka dadka imtixaankooda iyo dhibkooda wuxuu ka dhigi ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisii oo kale ayuu ka yeelayaa oo markaa wuxuu odhanayaa ilaahay baa cadaabay wax ilaahay cadaabay buu ka dhigayaa alla wuxuu yidhi wala in haddii jaa'a uu yimaado nasrun gargaar min rabbika rabbigaa xaggii ka yimi hadduu yimaadana layaquulunna waxay dhahayaan dadkaasi innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn macakum la jirkiinna markay arrintu isku duba dhacdo oo muslimiintu ay guulaystaan safkay soo geeyeen waxay leeyihiin hadda hawshaa idinla wadnay oo guusha waa la wada jecel yahay oo guusha nimaan wax ka soo dhalin ayaa markaa jecel inuu sheegto wey allah markaa wuxuu yihi awalaysa allaahu ilaahay miyuusan ahayn waa yahay waa jawaabtu awalaysa miyuusan ahayn allaahu alle waaba yahay biaclama mid u ogaal iyo aqoon badan bimaa shaygii fii suduuri alcaalamiina makhluuqaadka iyo uunka qalbigooda iyo laabtooda waxa ku jira ilaahay miyaanu u aqoon badnayn waa u aqoon badan yahay tabaaraka wa tacaala oo marka kuwan qalbigooda ayaa markaa ilaahay ka warramaya tabaaraka wa tacaala oo markaa waxay samaynayaan haddii la yar imtixaamo oo dhibaata dhacdo ama uu busaaradoodo ama dadku ay dhibaateeyaan ama dacwadda lagu dhibo wuxuu odhanayaa yani waxa weeyaan waxa igu dhacay waaba dhib buu odhanayaa jacala fitnata annaasi ka cadaab illah dadku dhibaataday u geysteen buu wuxuu ka dhigi ilaahay inuu cadaabayo ilaahay necab yahay oo kale ayuu ka dhigaya allah markaa wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala isagoo xaaladiisu noocaa tahay oo sabirkiisu sidaa u xun yahay walain jaa'a nasru min rabbik hadduu yimaado gargaar ilaahay xaggiisa ka yimi oo muslimiinta looga gargaaro maxaa dhacaya markaa layaquulanna aladiina kafaruu layaquulunna wuxuu odhanayaa innaa kunnaa macakum muslimiintu intuu u yimaaduu leeyahay waa idinla jirnay miciinaanu ahayn waa idin raacsanayn kunnaa muslimiin baan ahayn ilaahay baa u jawaaba wuxuu yidhi awalaysa allaahu ilaahay miyuusan ahayn biaclama mid u ogaal iyo aqoon badan bimaa shayga fii suduuri laabaha ku sugan alcaalamiina unka oo dhan ilahay waa ogayata waxba kama qarsoona iimaanku hadduu kaa dhab yahay iyo hadduu dheel kaa yahay hadduu munaafiq kaa yahay oo aan waxba ka ahayn qalbigaaga aanu ku jirin sida ilaahay yidhi yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim carabka iyo qalbiga afka waxay ka dhahayaan waxaan qalbiga kaga jirin allah marka wuxuu yihi wa min annaasi dadka waxaa ka mida waa la dhaleecaynaya dadka qaar baa markay xaaladdu isku fiican tahayna oo nabadgelyo iyo wax khayr iyo la haysta ya ama dalka la joogo islaamnimada iyo dacwadda iyo masaajidka safka hore ah xoogaa markay xaaladdu adkaatana odhanaya jin yaa wadaada ya jin yaa wadaada war maxaa masaajidka maya wallahi niyo xaaladdu baryaa waa la daba taagay war niyo maxaa daba taagnaanta beed ilahay baad ku jirtahay meesha aad ku doorsanaysa masaajidka ilahay waa xaggii waxaanse ilaahay ku qarmiye kugu dhacayaan waa maya marka waxa weeye dadkaas waxa laga yaabaa inay si fudud xaaladaba uga baxaan baa laga yaaba marka alle wuxuu yihi wa min annaasi dadka waxaa ka mida man mid baa ka mida yaquulu dhahaya aamanaa billaahi ilaahay baanu rumaynay faidaa goorta uudiya ilaan suuraddan waa suuratu imtixaan suuraddan sida imtixaan bay ka warramaysaa faidaa goorta uudiya la dhibo fillaahi ay fii diin illaahi ilaahay diintiisa ama ilaahay dartii marka loo dhibo
jacala wuxuu ka yeelayaa ka dhigayaa fitnatan naasi dadka dhibaatadooda iyo xumaantooda iyo dhibka ay u geysanayaan wuxuu ka dhigayaa ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa inuu ku dhaco kale khasab waa lagu dhibi oo waa lagu xidhi oo waa lagu dili oo waa lagu aflagaadeyn oo waa lagu samaha waxaan hadhihin ilaahay baa xaqiisa waxa weeyaan cadaab xaqiisa iga yimi hadhihin waxa tirada waa alxamdulillah way mar haddii aad imtixaaman tahay qul un alxamdulillah de soo markiis laga hadaad u tiiriso in cadaab alla kugu dhacay waa khatar way alla wixii tabaaraka wa taala wala in jaa haduu yimaado nasrun gargaar من ربك حقي كأهادي لا يقولون وحي منافقين تاسي أورانيان أو مؤمنين تكونهايان إنا أنكم مؤمنين كنا وحانو هين معكم إذن كقوة إذن لا صعد إذن لا جرى إلهي بقى جواب وحجري أوليس الله إلهي ميوصل أهين وابيهاي بأعلم مدؤو قال يا قوم بدن بما الشيء لم يانو أغين في صدور العالمين أونك يا مخلوقاتك وحلابه كجرا اللي ميوسن وين اللي وأوجي تبارك وتعالى آيات قدام بس 10 كنا عاوه أنكو جوجرينه ألا وحي ولا يعلمن الله ولا يعلمن إلا والله يعلمن وأوجانيا ألا وأوجي لكن معناه يدوح اللوجه ده وموجنيا إلهي محباك قرصون ما إلهي وحبسوها دروجانيا مترو ayada waxa loo jeedaa ilaahay wuxuu banaanka soo dhigaya oo cadeynaya oo muujinaya marka wala ya'lamanna wa ogaanaya allah wa alla wa muujinaya alladina akhyarti aamanu alla rumeeyay wala ya'lamanna alla wa muujinaya oo cadeynaya almunaafiqiina kuwa uurka gaalada ee warkoodu beenta yahay yaan ilaahay dartiis uga jeedin islaamnimada ay sheeganayaan alle labadaas kala cadeyn munaafiq إلهي تبارك وتعالى وافد حديث قرآن كان أنت أقبضا أيام منافقين توركوا ذا لقوا الرمي وأذكر دون تايو سورة النساء مركب بقرة لقارو هي سورة التوبة إيو دقاها قبص النساء سيدا منافقين تألا وحي به تبارك وتعالى مركب ألا وحي ولا يعلمن الله ولا يعلمن وموجنا يا عدينا يا الله ألا الذين كويبوا ألا عدينا يا آمنوا إلهي الرميي وإيمانك كرر الشيغي وإسلامك كسرناضي عند البلاء امتحانكم مركو يمادو أي الله عدين والله صار يا خير كودا ولا يعلمن ألا وعدين يا وموجنا يا المنافقين كوي أورك قال لها دنبقين الله نافو دنبق والدكين الله نافو اللهم اغفر